waxaa la yidhahaa Nimco Aadan Shacabdow intee joogna degmada Dayniile waxaa ka imaan Haduuman waxaa joogna kaamka Hooy Samsam oo magac dheer kaamka ruuxaanta mise biyahana habeen iyo maalin way helnaa waa ku maxsantahay masaarid biyaha anigu ku hadlay magacayga oo saddexan Islaaw Geedi waxaan aan deganahay degmada Dayniile waxaan ka soo barakacnay Buulo Mareer haddana biyaha habeen iyo maalin waan helnaa aadan aan u helnaa inkastoo cudurro ay jiraan wax kasta xanuuno badan ay iska jiraan oo wasaaradda biyaha na siiso oo maasha Allah nagu saaciday intaas aan cabayna ama dhar aan ku dhaqan ama dhul aan ku waraabsano maasha Allah way mahadsan yihiin qayr badan aan u rajaynayaa الرحمن الرحيم magacayga waxa waaye Simsi Maxamed Nuur waxaan joognaa degmada Dayniile waxa ahay horjoogayaasha kaamamka ahay santarka waxa la sadanka ruuxaanta waxa hoos timaado 13 kaam alxamdulillah 2020 bishii shanaad ayaa waxa soo bilowday corona awgiis wasaaradda biyaha waxay nagu caawisay biyahaas dadkii masaakiinta ah oo qaxootiga ah oo barakaca ah oo awoodin in ay biyo gataan ayay naga saaciday dadkaas oo biyihii ku helay xagga fardhaqashada xaggi salaada xaggi oo cunada ay ku karsadaan biyihii oo beec dadkii ka ahayn dadkii biyihii ay ku noolaadeen waxa haysanaa oo wasaaraddu ay noogu dartay agabkii fardhaqa agabkaas oo maalintii dad dhan ay ku fardhaqdaan 1,000 qofood بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdi Abdullaah Cilmi ahna xoghaynta xafiiska arrimaha bulshada ee degmada Dayniile aad iyo aad waxaan rabaa inaan xog aan idin siiyo oo ah barnaamij aan codsi anagu aan gudbisanay oo aan ka degma ahaan aad iyo aad aan codsiyo badan aan gudbisanay oo COVID-19 ku saabsan barnaamijkaas COVID-19 maadaama uu saameyn badan iyo dhibaato badan dalka uu ku hayo dadka degmada Dayniile ku noolnay u badan yihiin dad disability dad dhibaataysan oo barakacyaal u badan marka dadkaas ayaa waxaan u dalbanay codsiyo badan dirsanay waxaan codsiyadii aan u dirsanay kamid ahaa wasaaradda biyaha dowladda federaalka Soomaaliya waxayna naga caawisay inay naga caawiso biyo gelin ay u sameeyso dadkaas oo dad aad iyo aad u dhibaataysna si looga hortago caabuqa coronavirus waa dareemi kartaa haddaan biyo haysan ama aadan aysan jirin wax aad uga hortagto oo festivalka ah biyaha dadan haysan inay dhibaato dadka soo gaarayso dadka ka faa'iideystay oo loogu talagalay inay ka faa'iideysteen festivalkii wuxuu ahaa 30,000 qoys ayaa festivalka ka faa'iideystay phase 2 waxa ka faa'iideystay 32,898 phase 3 na waxa ka faa'iideystay 18,000 oo qoys welina baahidii way sii jirtaa dhibku waa haddana caabuqii mar labaad inuu soo laba kaclay waa waa dareemaysaan barnaamijkan wuxuu noo soo bilowday 18 bishii shanaad 2020 abtuna ugu socda waxaan rajaynaynaa in wasaaradda iyo hay'adaha gargaarka iyo qof walba oo wax ka geysan karta inay wax ka geysato soo dadkan waa dad dhibaataysan hadda waxa dareemaysaan waxa la soo maray dhibaatooyin tiro badan dadkan ay soo mareen biyo kaliya hadda waxba kama qaban karaan dadkan ma haystaan gargaarkii bini'aadanimo ma haystaan maxaa la yiraahdaa hoygoodii way soo arkeen kaamirmaanada iyo dhammaan dadkan way soo arkeen dadkanu hoy ma haystaan cunno haddana waa u jeedaa wadankii wuxuu galay cakiran oo ah kala xirxiran marka wasaaradda biyaha iyo wasaaradda gargaarka iyo hay'adaha kale waxaan ka codsanaynaa inay barnaamijkan ay ayaguna waxay ka geysan karaan oo karaankooda ka geystaan ka maamul ahaan anaguna waxaan diyaar u nahay anything qof kasta oo yimaada maamulka degmada Dayniile waxaan u furan tahay wax walba oo aad ka qaban kartaan oo ku saabsan caabuqa COVID-19 dhibaatada oo bulshada ku hayo